qayb ka mid ah oo aan qaangaar ahayn sida Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah, Maryan Maxamed Samow. ninkan oo lagu magacaabo Gaashaanle Axmed Cabdalle oo aan filayo dhammaantiin inaad wada garanaysaan ayaa maxkamadda sare ee ciidamada qalabka sida hortooda waxa uu ka jeediyey hadallo diinta islaamka gaf ku ah iyo dadka Soomaaliyeed balse ugu horreyntii muuqaalkaygu haddii uu ku soo gaaray waxaan kaa codsanayaa inaad nagu soo biirto haddii aad horey noola joogtayna muuqaalka inoo sheer garee mahadsanid. qayb ka mid ah oo aan qaangaar ahayn sida Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah, Maryan Maxamed Samow oo ayadana 17 jir ah. saddexda kale ee afarta kale waa qaangaar. ninkan gaashaanlaha sare ah oo ka tirsan xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ayaa waxa uu maxkamadda horteeda ka sheegay in gabar 16 sano jirta iyo gabar 17 sano jirta aysan ahayn mid qaangaar ah, taas oo ku cadaynaysa in maxkamadaha dalka waxa ay wax ku xukumaan aysan ahayn diinta islaamka iyo kitaabka qur'aanka oo ay waxa ay wax ku xukumaan ay yihiin dastuur kaas oo ay ku dhaqmaan dadka diimaha kala haysta ama reer galbeedka. maadaama diinteena islaamka ee suuban ay sheegayso qofku haddii uu gaaro da'da 15 sano uu yahay qof qaangaar ah, balse dalkeena iyo dadkeena Soomaaliyeed dunida waxaa lagu tiriyaa dalkooda iyo dadkooduba 100% ay muslim yihiin, balse maxkamadaheena sare ee dalka waxa ay wax ku xukumaan dastuur iyo dhaqan reer galbeed ama dhaqan meel kale laga soo minguuriyey. balse su'aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa maxkamadaha sare kiisaska ay qabtaan ay uga soo laabtaan su'aalo iyo hadallo aad u tiro badan iyo isqabqabsi kaas oo keena maxkamaduhu xukunka ay ridaan in eedeysanayaasha iyo qabiilada ay ka soo jeedaan ay ku eedeeyaan maxkamadda sare ama ay yiraahdaan kuma qanacsanin xukunka maxkamaddu ay fulisay oo waxa aan qaadanaynaa racfaan oo waxa aan raadsanaynaa maxkamad cadaalad ah. balse aniga dhankayga waxa aan filayaa waxyaalahan iyo su'aalahan aadka u tirada badan waxa soo celceliya ama mar walba keena in ay tahay maxkamadaha sare ama waxa ay wax ku xukumaan ama sharciga ay wax ku xukumaan in uusan ahayn mid ay ku qanacsan yihiin ummadda ama shacabka Soomaaliyeed, in aysan ahayn wax ay isku raacsan yihiin ama ay soo qorteen ama ay doorteen, balse ay yihiin wax loo dooray oo loo keenay oo lagu xukumayo la rabana in si xoog ah oo aysan rabinin loogu xukumo. qayb ka mid ah oo aan qaangaar ahayn sida Faadumo Maxamed Aadan oo 16 jir ah, Maryan Maxamed Samow oo ayadana 17 jir ah. saddexda kale ee afarta kale waa qaangaar. Faadumo Xasan oo 26 jir ah, Iisho Cismaan 22 jir, Xaawo Aadan 21 jir, Mulki Maxamed 18 jir. bacdama ay ka been sheegeen xogahooda saxda ah